dugsigan sare oo maanta aan dhagax dhigayno wuxuu qayb ka yahay mashaariic waxbarasho oo badan oo laga fuliyay gobolka Mudug iyo meelo ka baxsanba kuwaas oo lagu dhisay hab isku tashi bulsho ah oo haddana waxa weeye aan maanta u joogno qaybtii labaad oo dugsiga sare ah oo aan ka dhagax dhigayno aan ku siyaadinayno dugsigii hore u dhisnaayo oo himilo oo dugsiga hoose dhexe ahaa waxaan rabaa maanta inaan halkan idin kula wadaago xog ku saabsan macnaha dugsigan sare aan maanta aan dhagax dhigayno mashruucan waxbarashada oo himilo kadib markii dhulkan la gaday waxa la qorsheeyay 4 nooc oo waxbarasho horumarinta waxbarashada degmada Gaalkacyo oo himilo ay gacan ka geysan karto kuwaas oo loogu soo hormariyay dugsigan hoose dhexe oo aanu hadda galabta fadhino dugsiga sare oo aanu galabta isagana dhagax dhigayno iyo qorshaha dhow oo ay noogu jirto inaan hirgelino 2 maxad shariicada islaamka lagu baranayo iyo qaybta xirfadaha gacanta oo iyadana insha Allah taala rabnaa inaan isla xaafadan ka hirgelino hawshaas oo dhamaanteed waxa weeye waa hab isku tashi bulshada baa lagu waxaynaya annaga hadda waxa weeye halkan maanta ku soo gudbinayna codsiga bulshada himilo oo shaqada intaan leego quruxda badan soo qabtay haddana maagan kuwaas aan idin soo sheegay oo farsamada gacanta iyo maxadka shariicada iyo dugsiga sare oo hadda bilowday kuwaas oo aan u aragno inay muhiim ay tahay aan lagana maarmin doorka dawladda Puntland gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ka qayb qaadashadeeda dhamaystirka ka qayb qaadashada dugsiga sare iyo ka taageerista dugsigan hoose dhexe aan hadda joogno baahiyihiisa sida tababarka macallimiinta farsamada iyo waxa weeye ka warqabkiisa joogtada iyo ka qayb qaadashada dugsiga sare dhismihiisa iyo sidoo kale qalabayntiisaba oo aan bulshada himilo aan afkooda ku hadlayo ay ka codsanayso wasaaradda waxbarashada ee Puntland iyo madaxda dhamaanteed halkan joogta inay gacan ka geystaan mashruuca waxbarashada ee himilo oo runtii aan oran karno mashaariicda najaxday ee gobolka Mudug ama degmada Gaalkacyo ka hirgashay ayuu ka mid yahay oo waliba safka hore uga jira iyadoo qaab isku tashi ah wajigii koobaad ee dugsiga hoose dhexe lagu dhisay ardaydii dhiganaysay iyo macallimiintoodii iyo quruxda maanta ka muuqatana aynu aragno halkaasna aan lagu joojine han iyo himilo kaleeto wali la qorsheynayo oo ay ka mid tahay mashruuca aynu maanta dhagax dhigi doonno haddii alla idmo oo qaybta dugsiga sare ee himilo iyo mashaariicda sidoo kale himilada ku jirta oo qorshaha ku jirta oo ah macadka tababarka farsamada gacanta iyo macadka shariicada islaamka lagu baranayo waxaan oran karnaa waa qorshe runtii aad u mug weyn qaybtiisii hore alxamdulilaahi rabbil caalamiin lagu guuleystay qaybta dambana ilaahay aan ka rajaynayno inuu qalbigeena noo hagaajiyo oo aynu annagoo u dabaaldegayna xarig jarka dugsiga sare iyo macadka shariicada islaamka iyo macadka farsamada aynu dib isugu soo noqono inteena nool aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa ismadeena sharafta leh oo hawsha ay nagu hogaaminayay waxgaradkii gudaha joogay iyo kuwii dibadda joogay oo hindisahan ama dhaqaale ku bixiyay ama maskax ku bixiyay aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakumullahu alkhayr aljazaa miisaadkiina xasanaadka ilaahay nagu daro bulshada hadii wax la baro faa'iidada ay leedahay waynu wada dareensannahay annaga ka degma ahaanna waxaan diyaar u nahay inaan doorkayga qaadanno oo in garab istaagno oo wixii uu qareemid ah qaybta dhiman iskuulka ka dhiman ama ha ahaato qalabaynta tababarka macallimiinta waardiyaha wixii aan ka saacidi karno diyaar baan idinka lahay aad baan idinka mahad celinaynaa waliba waxaan aad iyo aad idinku dhiirigelinayaa qaybta farsamada gacanta oo aad muhiim ugu ah baahi weyn loo qabo waxaad arkaysaa arday 12 sano wax baranayay oo dugsi sare dhameeyay ama 16 sano wax baranayay oo jaamacad soo dhameeyay oo aan xirfad ku shaqaysta haysan ولينا والدكي أبي أما هو يدي كسوق ينور المعلوماتكي وحتى كفينا الله هيد أرضي دكسي سر نبيي أو فرسمة جعنتها أفر سنة وحبرني معلنتو كسب بحنا أودو يشاء إنه نور المعلوماتك سماري أو ويران أرنتها فرسمة جعنتها وقرشرونتي كم غندل كأن أما جاب أو كده بولشدو هنا يسقط الشطة وحمض فعية لهرجليه ومستقبل كدم بلغة فكراهي
bulshada in yar baa garata oo uga mahadcelinaya cid kasta oo mashruuca qayb ka ahayd oo garab istaagtay ka wasaaradda waxbarasho ahaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashadu nala joogo waa ka qayb qaadanaynaa wax kasta oo aan uga qayb qaadan karno horumarinta mashruuca himilo ka wasaaradahan waxaa annaga nooga aadan iyadoo aan shuruud lahayn baan qabanaynaa waxa ugu horeeya oo hadda aan gudoomiyaha degmada oo goobta fadhiyo ee gudoomiyaha waxbarashada degmada Gaalkacyo goobta fadhiyo aan si toos ah fariinta madashan uga dirayaa barnaamij hadda ka jira magaalada Gaalkacyo ama gobolka Mudug saddexda degmo ee Jariiban iyo Gaalkacyo iyo Galdugob oo magaciisu yahay ilmahaaga waxbar oo la doonayo ilmaha aan iskuulka imaan karin ama hadday noqon lahaayeen kuwa waxbarashada ka daahay ama kuwa yararka oo macallimiin laga bixinayo fiigooda ardaydana iskuulka la keenayo qalabkii iskuulka dayactirkii waxyaabihii maaragtay ardadaas ay maaragtay wax ku baran lahaayeen barnaamijkaas haddaan goobta ka amrayaa gudoomiyuhu degmada waxbarashada inuu sabtiga ama xadda tiimkaas iskuulka himilo keeno haddana way maqlayaa gudoomiyuhu intaa marka aan ka gudbo iskuulka himilo waa laba qayb hoose dhexe iyo sare hadda waxaa shaqaynaya oo wasaarad ahaan aan ogolaanay oo aan maaragtay ka warqabnaa ilaa fasalka 5aad inuu hadda shaqaynayo sanadkan kaliya guul bay inoo tahay deegaan ahaan gobol ahaan iyo degmo ahaan iyo ka wasaarad ahaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inuu ilaahay nagu guuleeyo xilkaas aan ballan qaadnay ee ah iskuulka wuxuu u baahan yahay iyadoo aan wax shuruud lahayn inaan sida ugu dhaqsiyaha badan u soo dhameystirno waana kurmeeraya maadaama aan hore u imaan hadda inaan kurmeero fasaladiisa iyo baahidiisa tan dugsiga sare runtii dhagax dhigiisa waxaa muhiim ah marka wax la qabsado in shuruucdiisii loo dhammaystiro aqoonsiga dugsiga sare ee himilo wasaaradda waxbarashadu waxay ka tahay raalli aniga iyo wasiirka waan ka wada hadalnay isku tashiga la qabanayo haddii dhismahaasi dugsiga sare uu ku dhammaado muddo 3 bilood ka yar oo nashqada aan haynay quruxda badan ee naloo soo gudbiyay iskuulka lagu dhameeyo ama hadduu sanad ku dhammaado meel laga raadin maayo aqoonsigiisii ardaydiisii iyo macallimiintiisii insha Allah waan helaynaa dadka hawsha badan ka soo maray maskaxda iyo muruqa galiyay haatanna u heelan baaqigiisa inay israaciyaan waa u mahadcelinayaa had li su'aaliye midda ugu ballaaran bilwaadan ahaan baan u mahadcelinayaa Allah barakeeyo bulshadan qaybaheeda kala duwan dawlad iyo shacab iyo odayaal iyo ganacsina waxaan ugu baaqayaa dadkaas waxa wanaagsan soo qabtay aayaha wanaagsan oo ballaaran sida ugu firfircoon inaynu uga qayb qaadanno qof walba teetalkiisa iyo wuxuu heli karo waxbarashadu waa nuur weeye lagu socdo jahliguna waa mugdi lagu baqti lagu dhumo ilaahay ma hadiis weeye xafladan wanaagsan dadka sameeyay oo waxa kale u sameeyay waxbarashada ilaahay waxaan weydiinaynaa ilaahay inuu karaameeyo waxaan codsanaynaa dadka hadda intiisa kale qaybaha ama dawladda ha noqoto ama dad kale oo hadda meesha jooga oo meelaha kamid ah noqoto in waxa lala qabto hawsha lala qabto oo waxbarashadeen ilmaheena wax ku baranaya jahliga laga baxaya torbay baan ku gaaraynaa in wax la qabto oo lala qabto oo sidaas oo kale loo garab istaago sidaas aan ka codsanayaa dadweynaha intii joogtay iyo inta maqanba dadka sameeyay oo hawshan ka sameeyay oo dabalaha jira oo rag leh oo dumar leh Allah idin karaameeyo midaan damahran waa hagaajiseen oo qaybta waxbarashada qaybtii dambe oo hadda la dhigayana sida aad u qabateen oo kala la idin ka rabaa inaad u qabataan Allah idin karaameeyo assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iskuulkan la dhisay oo hadda primary schoolka
dadkii miskax iyo maal iyo muruq intaba ku bixiyey haatanna maanta u soo tafaxaytay inay ku daraan mashaariiciisa kala duwan ee soo socda sida dugsi sare maxad islaamiya iyo school vocational traininga ilaahay idankiis dadkaasna waxaan leenahay waxaad la baxdeen ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo himilooyinkiinana allah hirgeliyo markaas waxaan kusoo gaabinayaa waqti gaaban orahaasi la gaaban khiyaaray waa idinka mahad celinaynaa kasoo qaybgalkiina waa ka mahad celinaynaa ducadiina waan ka mahad celinaynaa deeqdiina waan ka mahad celinaynaa juhdiga wasiir ku-xigeenku wuxuu nooga yimid magaalo madaxdii puntland buu nooga yimid waqti buu soo beerdareeyey waqti badan buu soo kusoo qaatay aad baan uga mahad celinaynaa sidoo kale authority-ga ama mas-uuliyiinta maamulka xilligooda iyo waqtiga ay noo soo horeen waa ka mahad celinaynaa ganacsatada waxgaradka iyo khiyaarta kala duwan ee meesha timid kulligiin qof walbaba niyad samida kasoo qaybgalka waqtiga ducada dadaalka iyo karaamaynta waa idinka mahad celinaynaa kulligiin ajir iyo xasanaad allah idinka siiyo waxaan marka ku ducaynayaa mar kale allah yow noo hirgeli allah yow noo hirgeli allah yow noo hirgeli mid barakooba iskuul barakooba oo wax lagu barto oo diinta islaamka lagu barto laguna xoojiyo laguna barto maadooyinka aqoonta caadiga lagu barto ilaahay ha nooga dhigo ilaahay saasaan ka baryaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu